الله ونحرسته وحا آسقرن لوغو سمية مقالة بورما مرحوم فنان عبد الرحمن عثمان محبة وما انت لغو آسي قبورها كيالا وقويقا مقالة بورما وحانا آسكا سيقرن كسو قيب قلي اسمه واحدة دقن كا وسارة warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland waxa kale oo ka soo qayb galay fanaaniin abwaano dhakhaatiir iyo culimaawidiin iyo waxgarad kala duwan oo ka socday gobolada dalka Somaliland waxay dhamaantood ka warameen taariikh nololeedkii Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan عثمان محبة مالين بني بات صعونية إلهي أنت اللي متن حاجة شغلك وقرا بكل جود به حتى لو حنتو تاجني حباشي أبوانكي هساقي هلابوكي التقينين عنك ها عبد الرحمن بارع إلهي حاجة شغلك وقرا بيو تاريخ دي سهلك كجوهر منه وحاول ما أنت أسكي سبلو تاجني وحقولي عن تاجني وحاول عن نقول إرجاء وإلهي وقبل ينون حاجة شغلك وقرا بيو وهو أدون نظيفة أدون مسكين لبوها أدون عدل وحيل بوها أدون كعنتيسي أبكيسي عرفيسي والله قلنا بتقلوها إنا لله وإنا إليه راجعون جريد هو حق وقف كستا ولمن دونا عبد الرحمن عثمان محبة عبد الرحمن ليري وهو هانين أرت أهل الدين وهو كل سر قويس ولاد أبيه وأو عثمان محبة أذكرنا وأو ظاهر محبة الإسلامنا ورد جديم بوها ولي إحنا هذا خصوصا حق النبي أمانة ذا ninkii kamanka ku tumay mawlidka nabiga fariisiibay waxa kaleey salaatu wasalaam dhinaca kale markaad ka xagga taariikhda Soomaalida wuxuu ahaa nin mulaxana fanaana heesa taariikh fara badan leh suugaanleyda malaha dadku laandheere sheegan wuxuu ku jira laandheereyaasha suugaanleyda markaynu ku hadlayno xaaskiisu waa Aamina Cabdullaahi Xirsi walaalkii waa Maxamed Deere oo isna xagga suugaanta doonidii jacaylka aan raacno lagu xusuusin jiray إلانتي سوا هذا عبد الرحمن ليري قيس عين كا وحول حلم بوها حاجة سوغانته عبد الرحمن عثمان نين في عم بوها نين دبعات في عم بوها نين عادي يكون يرصعد بوها نين فنانين وفنانين تي ووينيدي هوري اللي يقاني أبوها وحوها غير وده فنانين عبد الرحمن فنان بوها ده والله يقانا نين نويزك التما أو لحنا الصمية أو هيسا أو مثل بوها حاسكي سوا من عبد الله واحد نين اللي الشيء مايو وفنانتي وينيدي قرنقي الله قرنايو آمين عبد الله waxay iska dhaleen hodan cabdiraxmaan anigu waxaan u dirayaa tacsi bahda fanka meel kasta joogan waxa kale oo tacsi u dirayaa dhammaan reer maxabbe wiil iyo gabadhba meel ay joogaanba ilaahay walaalkeen cabdiraxmaan samiriye ibaan ay naga wada siiyo cabdiraxmaan ilaahu naxariistay waxa aad ay u taabanaysaa qofkii ay yaqaaneen waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u dirayaa walaalkii Maxamed Cusmaan waxaan u dirayaa xaaskiisa Aamina Cabdullaahi caruurtiisa hodan ugu horeyso Bismillahir Rahmaanir Rahiim runtii aad geerin xadin weeyaan cabdiraxmaan marxuumka nin aad isku naqaanay buu ahaa waxaan uga bariyay Ilaahay inuu jannatul firdaws uu ku casuumo marxuumkaasi walaalihii iyo xaaskiisii guud ahaanba iyo inta magaciisa garanaysaba ee muslimnaba waxaan leeyahay iimaan saadiq Allah inaga wada siiyo isagana jannatul firdaws Ilaahay ku casuumo waxa kaloon u tacsiyeynaya qoyskiisii oo horeyso Aamina Cabdullaahi iyo caruurteeda iyo inta kale la xidhiidha iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay iyo ummadda Soomaaliland guud ahaan waxaan tacsi kal iyo laaba aniga qoyskaygu baan u direynaa qoyskii Cabdiraxmaan Cusmaan Cabdiraxmaan Deere Ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo marxuum Cabdiraxmaan Cusmaan oo maanta aynu joogno qabrigiisii waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto inuu Ilaahay dambigiisa dhaafo inuu Ilaahay u fududeydiyo su'aalaha qabriga ku sugaya kuwooga ugu horeeya Cabdiraxmaan Cusmaan Maxabe Cabdiraxmaan Deere oo ahaa legendariga dhaqanka ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xaaskiisii muxuu ahaa Aamina Cabdullaahi Xirsi waxaan u mahadnaqayaa maanta dadka maanta meel walba iskaga yimid muxuu ahaa cid kasta oo garanaysaaba ay maanta halka
ay aaskiisa ka soo qayb gashay waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waad mahadsantihiin walaalkay geeridiisii waad naga samirsiiseen aad baad nooga samirsiiseen qofkaagii oo si qurux badan oo dareen leh lagaga aasay waxa weeye oo wax lagu mahadiyo wey innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waa caafi tv-ga qaranka somalilan boorama